جهاد جازية واستبشري يا حور عين واهتفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa. darsigeen wuxuu ka bilaabanaa aayadda 34 ee min suurati albaqara. qaala allahu tabaaraka watacaala: waid qulnaa, wadkur sheeg nabiga suubano, id waqti sheeg qulnaa aan nidhi lilmalaa'ikati malaa'igtaan ku nidhi usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda, fasajaduu malaa'igta way sujuudeen ilaa ibliisa, laakiin ibliis abaa waa diiday inuu sujuudo, wastakbara sujuudi ibliis wuu iska kibriyo, yani wuu iska weyneysiiyey. wa kaana ibliis wuxuu ka mid noqday yani min alkaafiriina gaalada. wa kaana ibliis wuxuu ka mid noqday bicilmi illaahi, ilaahay cilmigiisii ogaalkiisi wuxuu uga mid noqday min alkaafiriina kuwa gaaloobay. aayaddan ilaahi subxaana watacaala wuxuu nooga hadlayaa bani aadamka ayuu galad u sheeganaa caruurtii nebi aadam calayhi salaam, sababtoo ah siduu u fadilay malaa'igta ilaahay wuxuu amar ku siiyey inay yacnii u sujuudaan yacni aadam. halkaas waxaa arkaysaa bani aadamka guud inuu sharaf leeyahay, maxaa yeelay waati ilaahay subxaana watacaala uu malaa'igtaba ku amr. waid qulnaa, wadkuruu sheeg nabiga suban, id waqti qulnaa aan nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta usjuduu sujuuda liaadama aadaman u sujuuda, fasajaduu malaa'igta dhammaantood way sujuudeen ilaa ibliisa. istithnaa munqadic wa ilaa, laakin ibliis awaa waa diiday sujuudi, wastakbara waana iskibriyey. wuxuu yidhi ana khalaqtanii min naar wa khalaqtahu min tiin, aniga dabaa iga abuurtay, isagana dhoobaa ka abuurtay oo yani dhabaaqayso. nin dhooba ka abuurtay anima u sujuuda u yidhi, waa iskibriyey, isla weynaa gasha marka. wastakbara waana isla weynaaday. wa kaana ibliis wuxuu ka mid noqday bicilmi illaahi, saasaa loo soo qadara, ilaahay cilmigiisi sababkiis ayuu min alkaafiriin gaalada u mid noqday. macno labaadna waa loo soo qadara, waxaa wa kaana ibliis wuxuu noqday min alkaafiriina bisababi imtinaacihi, diididda sujuudda uu diiday sababkeed wuxuu ka mid noqday min alkaafiriina gaaladu ka mid noqday. sujuudda sababkeedu gaal uu noqday, diididda uu diiday. ilahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala: waqulnaa waxaan nidhi marka, yaa aadamu aadamow, uskun deg, anta adiga iyo wa zawjuka xaaskaagii xawa ah, aljannata jannada dega. adiga xaaskaaga waa ujeeda, ninkan ibliis cadow waaye, labadiina dega, jannada dega. wa kulaa cuna minhaa min aljannati, jannada xaggeedana ka cuna, ragadan ay aklan, cunitaan cuna, cunitaankaasoo ragadan ballaaran oo waasica, xayثu meel alla meeshaad shi'tum aad doontaanna ka cuna, xayثu meelna ka cuna shi'tum aad doontaan. jannadaas dega labadiina, wax cunto baa waasico ballaaranna cuna, meel alla meeshaa ka doontaan jannadana ka cuna, geedkaad doontaan waa. laakiin bis walaa taqraba ha u dhowaanina haadihi shajarata, geedan tan ah ha u dhowaanina. culimadaas geedda macneed waa isku khilaafeen. qaar geeddaas timira eedaa la yiri, qaar waxay yidhahdeen tiitiina eeday yidhaahdeen, qaarna waxay yidhahdeen waxa eeday yidhaahdeen zaytuunay ahayd, qaarna waxay yidhaahdeen canabay ahayd, qaar waxay yidhaahdeen qamadii eed. walcilmu cinda allah, waxaad xukun oo diinkaaga xiran ma jiro. adi geed ilahi wuxuu yidhi geed oo geedaha jannada ka mid ah, wuxuu yidhi geeddan ha cunina, walaa taqraba ha u dhowaanina hadi shajarata, geeddan, oo fatakuuna markaas aad noqotaan min adaalimiina, kuwa dulmilooshin ah, dhaalimiinta aad ka mid noqotaan. geedkan ha isku taabanina, laakiin inta kale jannada wax alla waxaad ku harataan cuna. faazalahumaa, yani xaawo iyo shaydaan waxaa simbirixiyey, ashaydaanu shaydaana simbirixiyey, canha can iljannati, jannaduu ka simbirixiyey. fa akhraja, shaydaan wuu saaray, humaa xawo iyo aadam, mimaa kii ayuu ka saaray, kaana fiihi ay ku dhex jireen, barwaaqadii iyo jannadii ay ku dhex jireen ayuu ka dhex saaray. fa akhraja, shaydaan wuu ka bixiyey, humaa xawo iyo aadam, mimaa kii ayuu ka saaray, kaana fiihi ay ku dhex jireen, ay ku sugnaayeenoo jannadii ah. isaga macnaa sabab u noqday sababtoo ah
geedaasay cuneen uu ku qalqaaliyey wuxuu yidhi geedaas cuna haddaad cuntaan waxaad helaysaan boqortooy aan weligeed baaba-aynin weligiinna ma dhimanaysaan marka wuu u dhaartay marka warnayo naga dhaaf geedan allah naga reey markaasuu yidhi waqaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin wuu u dhaartay wallaahi bilahi wuxuu yidhi anigu waa idin naseexeynaa geedan cuna haddaad cuntaan weligiina boqoro ayaad ahaanaysaan bani aadamka boqor waa jecel yahay mugt mana dhimanaysaan ila bani aadamka nolosha jecel way cuneen marka way iska aamineen nin ilaahay been kula dhaarana weligood ma arkin waxay isireen maadaama ilaahay uu ku dhaartay runuu sheegay is yirahdeen wuu gaaday marka waqulnaa waxaan niri marka ihbituu hoobta xawo iyo aadam iyo ibliis laftigiisa hoobta bacdukum qaarkiin xaal caduwun cadow libacdin qaar kale uu yahay ihbituu hoobtoo jannada ka dego adduunka aada bacdukum qaarkiin xaal caduwun col uu yahay libacdin qaarka kale adinkoo col iyo xaystis ku ah baxa ibliis waa kaasaa marka bani aadamka cadow uu ku yahay walakum waxaa idiin sugnaaday bani aadamow fil ardi dhulka korkiisa waxaa idinku sugnaaday ama dhulka gudihiisii mustaqarun meel lagu sugnaado meel guri meel masaajid meel aad ku sugnaataan iyo wa mataacun wax lagu raaxaysto ama masdar ka dhig wa mataacun raaxan waa idiin sugnaatay ilaa xiinin waqti inta laga gaaro inta waqtigiina laga gaaraayo bal waxa waaye ku raaxaysta laakiin waqtigii qiyaamaha haddii la gaaro ama xilligii nafsada lagaa qaadala hadii la gaaro had raaxada wayba dhamaatayo hadda marka kusii raaxaysto ilahi wuxuu yidhi subxana watacaala marka geedii cuna soomaa ilahi wuxuu yidhi subxaana fatalaqaa aadam wuxuu kala kulmay min rabbii xagga rabbigiis wuxuu kala kulmay kalimaatin kalimooyinka waxaa waa la yidhi markuu yani dembigi qaladkan uu sameeyo geedu cunay kalimooyinka ilaaha wuxuu baray inuu yidhaahdo rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin kelimadaas dhah a ilah yidhi kelimadaasay dhaheen markay yidhaahdeen ilahay waa ka toobad aqbala markay yidhahdeen ilahay waa ka toobad aqbala fatalaqaa aadam wuxuu kala kulmay min rabbi xagga rabbigiis kalimaatin ereyo waa ducadaas waay rabbanaa dalamnaa anfusana ducooyin kalena waa la sheegaa fahmaysa waa la sheegaa laa ilaha illa anta subxaanak inii kuntu min adaalimiin saasuu yidhi allaahuma laa ilaha illa anta subxaanaka wabixamdik rabbi inii dalamtu nafsii fakfir lii inaka khayru lghaafiriin ducadaasna waa la sheegaa laakiin tan aayad qur-aan kusoo aroortay fataaba ilaahay waa ka toobad aqbalay calayhi aadam markuu rabbanaa dalamna uu yidhi ilaahay waa ka toobad aqbalay maxaa yeelay inahu alle rabbi huwa tawaabu alla toobad aqbalis badan haddana arraxiimu oo naxariis badan marka aayaddaas ilaahay waxa waaye naxariistiisii haddana markuu qaladku ku dhacay ilaahay wuxuu baray ereyo oo hadduu ku tuugo ilahay uu ka aqbalayo ereyadaas oo rabbanaa dalamna anfusana uu yidhi ilahay waa ka aqbal qof walba marka hadduu dambaa waxaa u fiican inuu ilahay ducadan ku tuugo istikfaarna uu la yimaado soo ilahay kaaga toobad aqbal qulnaa waxaan nidhi marka ihbituu hoobta aadam iyo maxaa la dhihi jiray iyo xaaskiisi xawa iyo ibliis iyo duriyadu dhalaybo dhammaantiin ka hoobta minha jannada ka hoobta jamiican dhammaan xaalaatihiin saddexdiinaba ibliis iyo saddexdiinabo jannada ka hoobta jamiican dhammaan xaalaatihiin fa imaa yaatiyanakum hadduu idin yimaado caruurtii nebi aadamow hadduu idin yimaado minii aniga xaggeyga hadduu idinkaga yimaado hudan hanuunkaas waxaa loola jeedaa yani alrusul walambiyaa walkutub rusul iyo nebiyaal iyo kitaab oo ani xaggeyga ka socda hadduu idin yimaado faman tabica qof alla qofkii raaco hudaaya aniga hanuunkeyga yani rususheydii iyo kitaabkeygii qofkii raaco falaa khawfun wax cabsi ah calayhim korkoodii ma ahanin kuwaas yani fiima yastaqbiluuna min amri alaakhira wax ay qaabilayaan arrimaha aakhiro kama baqaan dhibaatada aakhira ka jirto walaa hum mana ahanin yaxzanuuna kuwa murgo oo yacni calaa maa faatahu min umuuri dunya adduunka waxay kaga soo tageenna maka murgaayaan qofkii raaco rususha aan soo diro waladiina kuwa kafaruu gaaloobay qur-aanka wuxuu hadlaa fi dadka fiican markuu ka hadlo haddana dadka xun uu ka hadlay ahlu naarka waladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo haddana wakadabuu beeniyeen biaayaatina anaga aayadahayn iyo rusushii aan soo dirnay kuwii beeniyey ulaa'ika kuwaas alla aayadaha ilaahay ku kufriyey asxaabu naari naarta dadkeedii waa naarta dadkii lagu shidi lahaa oo geli lahaa hum iyagu khaalidiin waa kuwii ku waarayo fiiha naartaas dhexdeedii ayay ku waarayaan qaala tacala ilahi wuxuu yidhi yaa bani israa'iila nebi yacquub caruurtiisiiyow udkuruu xusuusta nicmatii aniga nicmadeedii allatii nicmadii ancamtu calaykum aan dushiin idinkugu nicmeeyey wa awfuu oofiya reer bani israa'iilo bicahdii ballankeyga oofiya uufi anna waan oofin bicahdikum ballankiini waan oofin oo janno idaan idin gelinaya ah idinkana ballankeyga oofiya oo inaad rususha oo yacni nebi muuse ka dambaysa inaad rumaynaysaan wa iyaaya aniga keligayna farhabuuni
iga baqa reer bani israa'iilow wa aaminuu rumeeya bimaa diinkii anzaltu aan soo dejiyey anzaltu aan soo dejiyey calaa muxamedin usoo qadaro nabi maxamed aan kusoo dejiyey musadiqan xaaliyo diinkaas midkii rumeynaayo limaa diinkii macakum adinka yani la jirkiina ahaaday aayaddan waxaa laleeyahay macnaha yani oofiya wa awfu bixaddi ballankeyga oofiya uufi bicaddi ana ballankiina oofina maxay tahay yani ballankaa idinka qaadayo ah hadduu nabi maxamed yimaado inaad rumeynaysaan ballankaasa idinka qaado oofiya ana waan oofina ballankiina maxay tahay inaan yani idin gargaaro yani janna aan idin siiyo cadowgan idinkaga gargaaro marka rumeeya diinta nabi maxamed aan kusoo dejiyey musadiqan xaaliyo diinkaas midkii rumeynaya limaa diinkii macakum idinka la jirkiin ahaaday kitaabkaas towrad ay haysataan iyo kitaabkan qur-aanka ah wuxuu rumeynaya kitaabkii towraad xaq waay wuu leeyahay laakiin hadda waa la nasiqay xukum laga qaadan maa kitaabkan qur-aanka laga qaato walaa takunuu reer bani israa'iil ha ka mid noqonina ha noqonina dheh awala kaafirin yani awala fariiqin awala kaafirin waa sifo waay mawsuufkiia taqdiir ah waa lasoo qadira maxduuf waay waxaa dhi walaa takunuu ha noqonina awala kaafirin awala fariiqin kooxdii ugu horeysay kooxdaasoo kaafirin ku kufriso yani bihi bimaa anzaltu calaa muxamed nabi maxamed diinkan kusoo dejiyey kooxdii ugu horeysiyo diido ku gaalooda ha noqonina adig walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaati aniga aayadaheedii thamanan lacag ha ku iibsana ama dheeftaasoo qaliilan yar wa iyaaya aniga keligay fattaqun iga baq yaa bani israa'iil israa'iil waxaa la yihahdaa nebi yacquub magaciisa waxaa kamid ah yacquubna waa la yihahdaa nebi yacquub israa'iilna waa la yihahda marka nebi israa'iil haddaa maqashid iyo nebi yacquub waa isla mid marka yaa bani israa'iil waxay naqanee yaa bani israa'iila yaa bani yacquuba يعني النبي يعقوب عرورتيسيو وكواس ومركا هلكاس اسكا جوجو والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.